gabadhan muslimada oo diyaaradan saaran waa gabar orodka ciyaarto sidoo kale waxaa la socda tiimkeeda. gabadhan Saara lagu magacaabaa waatana marka kursigeedii ku fadhiisanay kursiga ku dhagana waxaa fadhiya duqdan cunsuriyada ah. Saarana hooyadeeda soo waceyso iyadana way ka qabanay kadib hooyada waxay dhehaysaa diyaaradda marka ka degtid soo wac sidoo kale suunka waa inaa xirataa. Saarana hayay ku dhehaysaa hooyada hadalkeeda sii wadatana waxay dhahay xijaabkaaga iska siibi. duqdii cunsuriyada aheeda soo boodayso kadib waxay ku dhehaysaa gabaray telefoon ma lagula hadlo diyaaradda marka saaran tahay. Saarana waxay dhehaysaa iga raali noqo hooyaday waaye. duqdaana way iska waale waxay u wacay shaqaalayaashii diyaaradda kadib gabadhii diyaaradda ka shaqeynaysa imaanayso kadib waxay u sheegay inay gabadhan telefoon diyaaradda ku dhex isticmaalayso. Saarana waxay dhehaysaa telefoonka mar hore aadamiyay. gabadhii diyaaradda ka shaqeynaysana waa maasanta intay dhahday iska baxe laakiin duqdaana u yeerayso. waxay dhaheen marka meelahan kursi kale muku yaala aniga waxaa rabaa inaan kursigan ka kacee. gabadhii shaqaalaha ahaydna waxay dhaheen mar waa dhibaato ma ku haysato kadib waxay ku dhaheen dhibaato mi ay haysato laakiin gabadha dhinacayga fadhiso waa ka cabsanaa. gabadhii shaqaalaha ahaydna waa tanaa way yaaban tahay. duqdaana hadalkeedii sii wadanay waxay dhaheen qoftan xijaabay wadataa. xogaa kadib gabar tiimka ka tirsaneed oo Saara saaxiibadeed aheeda waxay dhahaysaa aniga ku soo bedelayo kursigayga ku soo fadhiiso. Saarana saaxiibadeeda waxay ku dhaheen anigoo qaranka u dheelaya qof kasta xijaabkayga ugu cunsuriyana. saaxiibadeedna waxay dhahaysaa dadka dhan maahan ee waa dadka qaar sida duqdaan oo kale. xogaa kadib diyaaradii soo degaysa garoonkii la imaana ciyaartii koowaad markii la qabtana waxaa ku guuleysanaya Saara. iyaga oo dabaaldegaya waxaa arkayo nin iyo naag ciyaaraha kormeer ka ahay kadib macallinkii Saara intay u imaadaan waxay ku dhahayaan wax yar ma wada hadli karnaa. isagana wuxuu ku dhahaa diyaar waay. waxay ku dhahayaan ciyaartooydaada waxaa ku jira qof dhar qaldan wato annagana ma aqbali karno. Saara inta imaatay waxay dhahaysaa dharkayga maxaa ka qaldan. macallinkana wuxuu dhahaa ciyaartooyda dharku rabo soo qaadan karaa dharkan caadi waaye. qoftana intay soo booday waxay dhahaysaa gobolada caadi uu ka ahaa karaa laakiin sakana xulka qaranka waaye. Saarana waxay dhahaysaa sharcigan hagaa ka keenteen iyagana waxay ku dhahayaan sharcigan waxaa dhigaya buuga orodada adduunka. odaygana wuxuu dhahaa hadda booska koowaad waxaa ku guuleystay tiimkani ka soo horjeedo idinkana booska labaad waxaa ciyaari doontiin asbuuca labaad. kuwaana waa kuwaana weydiidayaan isagana wuxuu ku dhahaa naga raali noqdo waxaan qaban karna ma laha. tiimkii Saarana meeshii isaga tagayaan tiimkii kalena waa kana waa guuleysateen markii la dhaaway boodboodayaan. xogaa kadib Saara iyadoo meeshaan murug la fadhisaa waxaa u imaanaya laba gabdhood oo kuwii waa guuleysateen la dhaayay kamid ah. middaana waxay ku dhehaysaa marka waa ku salaamay gabarta guul dareysatay. Saarana waa tana intay soo istaagtay waxay dhehaysaa aniga ma guul dareysan ee sabab la'aan la ii diiday. middaana intay ku qosashay waxay dhehaysaa sabab la'aan miya ay dhahday waxaa loo baahan yahay inaad xijaabkan iska siibto si aad ciyaaraha uga mid noqotid. Saarana waxay dhehaysaa xijaabkayga diintaydu ka mid yahay mana siibi karo. tanna waxay ku dhehaysaa sidaas haday taa meeshaada iska sii fadhi. Saarana waa tana si toos intay u niyad jabtay meesheedii iska soo fadhiisanay. xogaa kadib saaxiibadeeda intay u imaatay niyadda u dhisay waxayna ku dhehaysaa qof kasta wuu og yahay inaad guuleysatay. naagtan duqdaa u jeedin taajiradu ay wax xirtaan ninkan dhalinyarada inay lacagteeda ku guursato. ninkan kale odaygaana waa ninkii iyada qabay isagoo dhulkan alaabtiisa ka aruursanaya ku dhacayaan. waxay ku dhahayaan maana ku jeedin ay naga raali noqo isaguna wuxuu aqoonsanaa inay midaan xaaskiisa tahay kadib wuxuu weydiinaa aniga mi ay qiyaame. waxay taagan tahay aniga ma ii jeedidoo weli dhalinyaro ahay sidoo kalena taajirada ahay. sidaas darteed waxaan u qalmaa nin dhalinyaro ah oo kala kacsan sida midkana u jeedid iska baro. mana u baahni nin oday ah oo dhabarku xanuunayo oo daalan oo caawimaad iga sii baahan. midkii la socdo wuxuu weydiinaa adiga ma ka xishoonaysid miyaa naag duqa oo ku dhali karta inaad la socotid. wuxuu taagan yahay waxaas caadi dhib male hooyadii labaada ka dhigana. ugu dambeyn odaga waxay u sheegaysaa inuu guriga dib ugu laabto halkaasna ay shaqo badan taalo oo shaqadaas qabto. asna waa kana ahay meeshaan uu iska fadhiisanaa kadib meeshii isaga tagayaan iyada iyo midkii yara. xogaa kadib isagoo meeshaan iska fadhiyo xanuun dareemaya waxa uu imaanaya naagtan kaloo duqda intay ku soo leexato si ay u caawisay isaga laftirkiisa aqoonsane. waxay ku dhehaysaa aniga ma ii taqaanaa waxaan ahay gabar aad jaamacadda isla dhigi jirteen markii ay yareedeen. isagana xogaa waqtiga ku qaadanaysaa inuu midaan soo xasuusto ugu dambeyn uu soo xasuusana. cabaar ay wada sheekaysanayeen waxay weydiinaysaa adiga gaari ma leedahay aad gurigaaga ku tagto mase aniga gaarigayga kugu qaado. wuxuu ku dhahaa maya aniga gaari ma lihi ee waxaad igu caawisaa midkaaga si aan gurigayga ku tago. intay soo baxeen waa kuwaana gurigiisii yimaadeen. wuxuu u sheegaa inuu mar labaad ku faraxsan yahay inay dib isku arkaan wanaaggeedana uu uga mahadcelina. markii uu gaariga kasii degaya boorsadan yartaa uu ku iloobay. markii uu guriga gudaha u soo galay wuxuu ka welwelay xaaladda oo maanta xaaskiisii kula soo kulmay. xogaa uu fakirayay kadib ugu dambeyn wuxuu go'aansanaa in gebi ahaanba duqdan gurigeeda uu isaga tago. isagoo albaabka kasii baxaya wuxuu arkaya inay albaabka taagan yihiin gabadhiisa iyo ninka iyada qabo. soo dhoweyn kadib wuxuu weydiinaya idinka meesha maxaa u timaadeen dhibaato miyaa jirto. gabadhiisa waxay ku dhehaysaa caawa waa cawadii aad idinku cashada nugu ballamiseen miyaad ilowdeen. ninkeeduna odaga wuxuu weydiinaya xaaskaagii aawa ma arkay iyada xaggay ka baxday. isla markii ay ka sheekeynayeen iyadii waatana ay meeshii soo gaaray. duqdan caadi maaha ninka gabadheeda qabay intee boorsadeeda u dhibtay waxay ku dhehaysaa inta qaadid qolkayga igey waa taqaanaay. ninkeeda duqaana waxay ku dhehaysaa aawi cunadii aan ku dhahay diyaari ma diyaarisay. haddii aadan diyaarin hadda bobsii diyaari aniga gaaja ay heese. markii aad soo dhamaysidna waxaan kaa rabaa inaad ii timaadid oo xogaa lugaha ii riixriixdid maanta waa soo daali. gabadhu waxay la yaaban tahay sida aabeed
loola hadlaayo jikadii u raacaysaa si ay cunada loo diray ugu soo caawiso. xoogaa kadib dhammaantood waa kuwaana iyagoo dhammaystay cunadii odagu diyaarinayay. odaygu waa ku caasi oo alaabta u dhaqo, gabadhiisa waxay u sheegaysaa inay iyadu ku caawinayso. laakiin duqa gabadheeda waxay ku dhehaysaa maya arrintaas inaad samayso looma baahno, duqaan isaga shaqada qabsanayo. laakiin iyadoo hooyadeed waxay u sheegaysaa inaan loo baahnayn inay aabaheed sidaan ula hadasho weliba iyadoo joogto. kadib iyadoo intay qosashay waxay dhehaysaa gurigaana u jeedid waxa qarash ku baxoo dhan anigaa bixiyo, qof kale ma bixiyo. xitaa haddii uu isagu oday yahay aniga waxba igama gelin. arrinta gurigan ka socotana weligeed sidaanay ahaanaysaa, haddii uu isagu ku qanacsanayna wuu bixi karaa. midkii gabadheeda qabaa wuxuu ku dhahmaagaa maadaama aa waayeeltiin shaqaale ma qabsatiin. laakiin iyada waxay ku dhehaysaa adigu miga aamusi kartaa hal mar. waxaan ogahay inaad adigu maalin kasta shaqo raadiso aanan weyso, sidaas darteedna ay gabadheedu maalin kasta adiga ku caawiso. middaa ninkeedii waxay u sheegaysaa inakeen meeshaan waa isaga tegaynaa, waxaan u malaynaa inaan waqti qaldan imaanee. maalin kale midii duqdeed waatana ay gurigeeda dib ugu soo laabatay iyadoo habeenkii oo dhan maqneed. ninkii dhallinyarada ahay oo saaxiibkeed ahay waxay u sheegaysaa inuu hadda gudaha soo geli karo. odagana waxay ku dhehaysaa annaga xaloo dhan aan soo daalinay, sidaas darteed meeshaan waxaan u nimaanay inaan ku nasanno xoogaa. saaxiibkeeda wuxuu weydiinaya adiga maka xishoonaysid miyaa in naag la qabo aad gurigeeda u soo raacdid. laakiin midkaan lacaga u cad intuu biyaha dhulka ku daadiyo odaga waxaa ku dhahaniyo meeshaan wasaq waayo xoogaa ma naga tirtiri kartaa. iyagoo rabaan inay guriga gudaha u galaan albaabka lagu soo gargaraaca. markii ay furto waa duqdii ay ninka odaga jaamacadda isla bari jireen markii ay yaraayeen. waxay weydiinayeen ninka odaga ahay oo gurigaan lahay aawe maalin dhaweyto boorsidiisa gaarigayga kusoo dhex iloobe. boorsadii intay ka qaaday waxay ku dhehaysaa saacadda ninkayga ma joogo, waa maqan yahay, iska bax aniga u geynaye. laakiin iyadu waxay arkaysaa ninkii odaga ahay oo dhulka tirtiraayo. midaan waxay bilaabaysaa inay albaabka xirato. midaan markay arrintaas aragto waraaqadaani odaga waxay ugu qoraysaa haddii caawimaad u baahan tahay la soo xiriir. maalin kale ninkii odaga ahay isagoo guriga bannaankiisa hagaajinaya labadii u imaanayaan. waxay taagan tahay hadda anigii saaxiibkay waxaan rabnaa inaan bannaanka u baxno si aan waqti u soo qaadanno. asna waa kana wuxuu arkaa waraaqadii u qorta midii ay jaamacadda isla dhigi jireen. isagoo cunno karinaya mar labaad gabadhiisii u imaanay. xooga ay wada sheekaysanayeen kadib waxay ku dhehaysaa waxaan rabaa xaaladda adiga iyo hooyada idinka dhexaysa maxay ku bilaabatay. wuxuu u sheegaa in hooyadeed ayaantan ay la socoto nin dhallinyaro ah, isaguna uusan ku qanacsanayn meeshaan uu rabo inuu ka tago. aniga ku caawinaya xaafadeeda ii soo raacay ku dhehaysaa, laakiin isagu wuxuu u sheegaa hadda inuu jiro qof kale oo raba inuu isaga caawiyo. waraaqadii intuu soo bixiyo wuxuu la xiriiraa midii ay jaamacadda isla dhigi jireen. intay u timaado wuxuu ku dhahaa waa kaaga mahadcelinaa maadaama aad i caawisay waqtiga aan aniga ugu baahida badnaay. midii kale waatana way iskeentay. waxay weydiinaa adiga maxaad ku fikirayay, waxaana ii sheegtaa hadda meesha aad rabtay inaad aado. wuxuu ugu jawaabaa aniga waxaan go'aansaday maanta laga bilaabo inaana meeshaan sii joogin oo aan ka tago. intay qosashay halkay rabtaa ina aado ku dhehaysaa mase waxaad rabtaa inaad sida derbijiifyada derbiga ku noolaato. wuxuu u sheegaa maya sidaas ma dhecayso, gabadheyda ay caawinayso iyadu marnaba ma iloobaysa xaaladan anigu ku suganahay. oroday ku dhehaysaa fasaxa tahay waa bixi kartaa, laakiinse waxaan hubaa inaad dib u soo laabo doonto, weliba adigoo calacalayo oo aniga i baryaayo si aad dib ugu soo laabato. midaan kale waxay taagan tahay arrintaas muhiim maahan, duqa waa ilaasho weysa maahana waa lagu ilaalina. iyagoo rabaan inay baxaan waxay isku dayaysaa inay celiso, isla markiina gabadheeda intay meesha soo gaartay waxay ku dhehay dhibaatadaada ha ka tagay iska daay. sanado badan waxaan arkayay sida aabbahay ula dhaqmayso, haddana wuxuu u qalmaa inuu nolol fiican ku noolaado. isaguna wuxuu weydiinaa saaxiibka dhallinyarada ahay wuu joogaa soo maahan, orod isaga aad noloshana ku raaxaysta. haddeertaane waxay ku calaacalaysaa adiga si wanaagsana kula dhaqma, hadda kadib soo laabo. muuqaalkan intaasoo ka ekaya hadda halkaas soo gaarta leegnosa. soo dhawaada ninkaana u jeediin caan waaye iPhone 17 intuu soo qaatay isagoo muuqaalo iska dudubaya naagtan hadaladiisa oo dhan maqle. kaamirada dhexdeeda wuxuu ka arkaa naagtan dhinaciisa gadaala taagan oo ismashquulinaysa. kadib wuxuu weydiinaa marma waxaa ka caawiya. waxay ku dhehaysaa su'aal haddii aan ku weydiiyo taleefankaas aad gacanta ku haysid iPhone 17 miya? haaho ku dhaha shaki miyaa kaaga jira ma u jeedido. waxay weydiinaya taleefankaas sidee ku heshay, weli mausa soo bixin mise adigu waxaa tahay nin taajira. wuxuu ugu jawaabaa maya waa jeclaan lahay inaan sidaas ahaado, laakiin anigu waxaan ahay nin muuqaalo soo gudbiyo. taleefanada cusub ee soo baxaan qiimeeya, marka sidaas waxay ugu fududaatay inaad taleefankan helo. waxaa jira nin aan saaxiibo nahnay oo meel meesha degan, asagaana taleefankan si free igu soo siiyey. lacag 100 intay soo bixisay waxay ku dhehaysaa saaxiibka dhalashadiisa waaye taleefankan hadiyad ugu dhigay igu soo wareeji 100 qaado. isaguna wuxuu u sheegaa inuu taleefankan inta uu soo baxayo iska sugato sanadka dambe markaasna ay saaxiibkeed u geedo. lacagtii ay heeday 200 ka dhigay, laakiin isagu mar labaad uu diidaa inuu lacagta qaato. waxay u soo jeedinaysaa maadaama uu taleefankan si lacag la'aan uu ku helay inuu lacagtan iska qaato isagu wanaagsan tahay. laakiin isagu ugu dambeyn wuxuu ku dhahaa taleefankan 1500 oo ka badan yahay, adigana 500 ku rabtaa ordaga tag meeshina wuu isaga tagaa. gaarigiisa uu inta u galo xoogaa uu wadada ku sii socday wuxuu arkaa iyadii oo mar kale hortaagan. markii uu weydiiyey sababta ay hortaagan tahay waxay u sheegaysaa inay lacagta $10 ka soo dhigtay uu taleefanka ku soo wareejiyo. wuxuu taagan yahay waxaan oo dhan taleefanka dartiisa miyaa u sameynay. lacag badan ay haysataay inta taleefanka iska diiday saaxiibka waxa uu wadaa dalxiis, laakiin iyadu wali waxay ku adkaysanaysaa inay taleefanka rabto. wuxuu u sheegay inuu booliska u wacayo intuu gaarigiisa galay, iyadina waa tarahay ma bixisay gaarigeedii ku dhex sugayay. booliskii markii ay taleefanka ka qabteen wuxuu ku dhahaa naaga ay daba dhigatay ma aqaan wixii daba dhigay iga soo gaara. markii aragtay inuu booliskii rurumay u wacay gaarigeeda intay soo wadatay kiisa ku dhufane. intii uu ku mashquulsanaa gaarigiisa wixii ku dhacay intay soo daba martay taleefankii meesha ugu jira ka baxsane. xoogaa kadib meesha waxaa soo gaaraya booliska oo midkaan hore u wacay. askarigana wuxuu weydiinaa dhibaatadiina maxaa waaye soo hadla. waxay ku dhahay anigoo gaarigayga iskaga dhex jiro midkaan gaarigiisa igu dhuftay, haddana dhunta way xanuunaysaa, waxaan u malaynaa inay wax iga soo gaareen. ninkii wuxuu ku dhahaa markaaga waaye soo hadal adigana. wuxuu u sheegay isagoo taleefan iPhone 17 iska wato oo fiideo iska duduubaya inay iyadu u imaatay. gadaashidii intay soo istaagtay waxay ugu dhahday taleefankaas sida u heshay weli mausa soo bixinay. markii aan u sheegay taleefankan inuu mid
saaxiibkay isiiyey waxay ii soo bandhigtay lacag si aan taleefka uga gato markii aan ka diiday lacagtii ay ii soo bandhigtay waxay bilowday inay gaarigeeda igu dhufato taleefankaygiina iga baxsato kadib aniguna waxaan go'aansaday inaan idinka idin soo waco mar labaad askarigu midkan wuxuu weydiinaya taleefankaaga xitaa makaa xaday haaho ku dhaha muuqaalkan xitaa waa daawo kartaa waa markii ay gadaashiida taagneed anigana aan muuqaalka iska duubayay marka hadda qoftan waxaa weydiidaa qofka meeshaas taagan iyadii miyaa mise waa qof kale markii uu askarigu weydiiyo qofkan yaa waayo waxay taagan tahay aniga maahan waxaa laga yaabaa inuu sawirkayga helay kadib oo ay ku sameeyey gaarigaaga ma baari karaaho ku dhaha laakiinse iyadu waxay isku dayeysaa inay u diiday in gaarigeeda la baaro kadib askarigu ma dhegeysaaya hadalkeedii wuxuu bilaabaa inuu gaariga baaro kursiga horewna ka helaa taleefankii intuu soo qaado taleefanka wuxuu ku wareejinaa midkii iska lahaa iyadana intuu xiro wuxuu u sheegaa inay tuuga tahay dembigeeduna uu ku caddaaday markii la sii wada askariga waxay u sheegaysaa in saaxiibkeed uu hadiyad kale kacsan ka sugaaya inay dhalashadiisa tahay muuqaalkan intaas ku ekaaya dalkaas ogaarta leegnoosa